بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دواد والاليال برنامج كان الله مقع بحي سرت شيطانك موقتها شيطانك سريه سقرصون يدقرتها وملاقية قرشياشيس haddaad rabto inaad si guud u fahamto sirta shaydaanku waxa weeyaan waa cagsiga islaamka wax kasto islaamku ku amrayo cagsigeeda ayuu shaydaankuna ku amraya waxa ilaahay uu jecel yahay shaydaanku wuu neceb yahay waxa ilaahay neceb yahay shaydaanku wuu jecel yahay waxa ilaahay rasuulkiisu ay ku amraan shaydaanku uu ka reebaya waxa ilaahay rasuulkiisu ay ka reebaan shaydaanku uu ku faraya uu ku amraya marka sirta shaydaanku waxa weeye cagsiga islaamka wax kasto islaamku ku amro cagsigeedu buu shaydaanku ku amraya hadaba sirihiisa qarsoon qaar kamid ah baran doona insha Allah ta'ala waxa kamid ah sirihiisa ma taqaana shaydaanku qaabka uu socdo waa koow ma taqaana shaydaanku meesha uu fadhiisto ma taqaana shaydaanku wuxuu sameeyo marka qofku uu galo suuliga iyo musqusha ee uu gudanayo xaaji gudasho ku jiro ugu horeyn aan ku bilownay qaab nooceeyo buu shaydaanku u socdaa shaydaanku wuxuu u socdaa walaalayaal isaga oo kab kaliya sita oo kabna ay tahay mid cagaagan marka kab kaliya uu gashtaa kabta kalena way iska cagaagan tahay kab kale kuma sito subhanallah maanta dunida hadad u fiirsato modelkii u dambeeyay ama stylekii u dambeeyay ee loo labisto ama xaragada heerkii u dambeeyay waxa weey inuu qofku lugna uu ku gashto kab lugta kalena uu kab la'aan yahay ama lugu ku gashto sharabaadkii ama saksanti ta kalena ay u qaawan tahay moogtay hadaba socodka noocaas inuu yahay socodkii shaydaanka rasuulkii ilaahay wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam إن الشيطان يمشي في النعل الواحد شيطانك وحو كسودا كب كليا waxa soo wariyay tahawi ayaa ku soo saaray kitaabkiisa mushkil al-athar waxana saxiixiyay sheekh albani xadiis kale oo saxiixaynka ku yaala bukhari iyo muslim ayaa rasuulka waxa uu yiri sallallahu alayhi wa sallam la yamshi ahadukum fi na'lin wahid yaanu midkiin ku soconin kab kaliya لينعلهما جميعا هوذا قشت لبدي كبودما أو ليخلعهما جميعا أما لبدو دبا هسيبو وحصل صريح حديث كان بخاري مسلم وحكلو جرى ولا لي الحديث كلو صحيح مسلم كويا رسولك وحده عليه الصلاة والسلام هدي متكين indhasha kabto ay ka jabto indhasha kabto waa kabta markaan sida uu sidano oo kabta aan gashano waxa jirta suulka iyo farta kale meel ay dhixdooda galaan marka indhal baa leedahay indhashaasi hadii ay jabto macna kabti hadii ka kala go'do labada kabood basiib kab kaliya ku soconine ama laba kabood wada xidho taas waxa weey sunnada rasuulka kaleey salaatu wasalaam nabiguna wuxuu inoo sheegay inay karaahiyad tahay inuu qofku kab kaliya u gashto sababtu waa maxay walaalayaal waa socodka shaydaanka qaabka u socda hadaba waxaan isweydiinaynaa shaydaanku meesha uu fadhiisto waan garanaynaa bariyaadamku meelaha ay fadhiistaan guryahooda ama meheradaha iyo dukaamada iyo maqaaxiyaha iyo hoteelada iyo meesha geed hoostii iyo meel hadh iyo hoos leh ayay fadhiistaan ama mararka qaarkood way milicsadaan oo cadceeda iyo meelahaas ay fadhiistaan laakiin shaydaanku wuxuu fadhiistaa qayb kamid ah hadhka iyo qayb kamid ah milicda qayb kamida hooska iyo qayb kamida bacadka qayb kamida qoraxda iyo qayb kamida hadhka intaas u fadhiista waa haafan haaf qaybtaas waxa weeyaan jidhkiisu waxay xigtaa milicda iyo cadceeda iyo qoraxda qaybtan kalena hadhka iyo hooska halkaasna waa reebay rasuulku wuxuu yiri lama fadhiisan karo waayo waa meesha uu fadhiisto odayga shaydaanka وحده رسولك عليه الصلاة والسلام حديث لغا ورينايو عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي نهى أن يجلس بين الضج والظل نبيغا waxa laga wari inuu reebay in la fadhiisto meesha u dhaxaysa hadhka iyo milicda waqala wuxuu dhahay nabigu majlis ash-shaytaan wa meesha uu fadhiisto shaydaanku xadiiskana waxa soo saaray Imam Ahmed hadaba waxaan isweydiinaynaa waa sirtii shaydaanka man ku jirnay moogtahay muxuu sameeyaa shayaadiintu waliba al-khubth wal khaba'ith nimanka xunxuna shayaadiinta iyo naagaha xunxuna shayaadiintu marka qofku uu galayo suuliga hadaanad bisinkii qabsanin aanad is asturinna
muxuu sameeynaya shaydaankaasi wuxuu sameeynaya inuu ku cayaaro badida iyo meesha bani aadamku ku fadhiisto subhanallahi la ilaha illa allah rasuulka ilaahi waxa laga wariyay sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri manata al-ghaida falyastatir qofkii xaajo gudanaya macnaha kaadi ama saxaro aadaya meeshii suuligii aadaya ama banaan aadaya si uu ugu soo xaajo guto falyastatir haysa asturo fa in lam yajid hadanu helin wuxuu isku asturo macna suuligu imika wuxuu leeyahay gidaariya darbiyo laakiin bariga hore dadku halkay aadi jireen de banaanka marka meel la isku asturo oo ku asturaysa ma jirto marka nabigu wuxuu dhahay hadaan helin meel aad isku asturto illa an yajma'a kathiban min ramlin hasoo ururiyo marka meel taaga ha tago marka meel taaga oo ciid tamuuxa agteeda ha tago meel yaro taaga oo ku asturays falyastadbiru halka ha u dhabarjeedi macna dhabarkaagu waxa xigo maxay dhanka taagada hay nabigu muxuu dhahay fa inna shaytaana shaydaanki ayaahe yal'abu bimaqa'id bani adam ku ciyaaraya barida iyo meesha uu bani aadamku ku fadhiisto ayuu ku ciyaaraya sidoo ugu ciyaaraya taban hadii aanad is asturin ama meel gidaara ama darbi ama meel taaga ama buur hoosteed meelaha hadaan isku asturin waxa weeyaan shaydaanki wuxuu kugu kicin karaa dabaylba deetan uu kugu qosliye deetan kaadidii iyo saxaradii ba kugu daadanaysa la ilaaha illa allah sayyidina muhammad rasuulullah sida darteed buu yadhaku alayka shaytaanki ba kugu qosliyaba marka uu kugu cayaaraya uu kugu jeesjeesiya uu ka xaraabaysanaya li'annahu yal'abu maqa'id bani adam badida iyo meesha uu aadamuhu ku fadhiisto ku ciyaaraya idan waxaynu cadaatay xikmadda layna amray in marka aynu musqusha iyo suuliga galayno in sababta aanu nidhaahno bismillah اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث بسنك إلهي بانكو قلي واي إلهي وحن كام مغان قليا شيطانك خبيث ننك كيس ننحن إيا الشيطامة ناكتا خبيثة أهي شيطامة إي سولية جوغا مركا الشياطين تهسي waxa ku nool yihiin suuliga la ilaaha illa allah sida darteed bani aadam ka cawradiisi buu doonayeen ku cayaaraan markaad bisinka ku gasho way indhabeelayaanba waxba ma arkayaan وانا ديس أسطورتو حجابك بني آدمك يا شيطانك ودحينا وابسنك النبي قلنا وحده عليه الصلاة والسلام ستروا ما بين عورات بني آدم وأعين الجن أن يقول بسم الله حجابك ودحيا عوراتك بني آدم قفكم مركو قاوية عورديس iyo indhaha shaydaanka xijaaba u sokay xijaaba u dhaxay xijaabkaasina waxa weeye an yaqula bismillah wa inuu dhaho qofku bismillah saadarteed rasuulku wuxuu amray markan aad isqaawiseed dharka iska bedelayso waa inaad bismillah tidhaahdo markaad suuliga galayso bismillah waa inaad tidhaahdo si uu shaydaanku u nabalo oo waxba u arki waayo oo gidaar uu ka sokeeyo saddexda arrimood waxay ka mid yihiin siraha shaydaanka kuwa kale oo siraha shaytaanka kamidana way noo soo socdaan wallahu ta'ala a'lam wassalamu alaykum wa rahmatullah